badan baa waxay u yaqaanaan nin wax iska celiya laakiin waxa la yiri likulli maqaamin lahu maqaal goob walbaaba hadalkeeda leeda aniga afar bari baan joogay ninkii gar ii haysta waa ii dhigan kare laakiin gogasha Cabdiraxmaan maanta lagu caleema saarayo mar raba inaan garteeda ku galo aad iyo aad baan u maasantiin degmooyin galmudug kamid ah oo 4 ilaa 5 xorriyadda caaway lagu dabaaldegayo ma haystaan goladeegan baahidooda goladeegan maahan baahidoodu nal maahan baahidoodu biyo maahan baahidoodu waa in laga dulqaado cadawga ku dul habsaday waxa ka dulqaadayana malaa'ig cirka ka soo degaysa maahan waa inta halkaan fadhida oo deegaamadan iyo deegaamaday ka yimaadeen iyo ciidamada galmudug jooga oo localka ciidamada state-ka iyo ciidanka federaalka iyo shacabka hubaysan oo tirada badan oo hubka ayagu isku samaystay hubkaas iyo xooggaas ayaa waxa la rabaa in lagu jiheeyo in laga dulqaado meel aan loo jirin 20 kiilo ayaa cabaad iyo qayladaan ay ka yeeraysaa aanan maqlayn qof walba magaciisa iyo maqaamkiisa aan ku salaamayaa salaamullaahi calaykum salaan kadib runtii waxaan marka koowaad rabaa inaan u hambaliyeeyo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa iyo golaha deegaanka ee caasimadda galmudug ay yeelatay markii koowaad baan u malaynayaa taariikhda oo weliba ay doorteen oo ku guulaystay gudoomiye rugcadaa ah macalin Cabdiraxmaan Geedo Qorow iyo ku-xigeenkiisa hambalyaan leeyahay marka koowaad waxaa isku hambalyeynaya caasimadda keliya maahan dadka reer galmudug oo dhan baa isku hambalyeynaya waayo caasimaddoodii ayaa yeelatay maamul la soo doortay oo accountable ah isla xisaabtan hadda wixii ka dambeeya asaguna uu sheegay loogu istaagayo maamul heerkii saddexaad ah oo la daadejiyey oo dawlad baahinta serviceka talada dadka loo dhaweeyay maamul daadejin macnaheedu kaliya maahan qof xil qaada laakiin waxaa la daadejiyey taladii ayaa loo dhaweeyay dadkii oo dadkii inay baahiyadoodii kala duwanaa ay la sheer gareeyaan kula xisaabtamaan u gudbiyaan dadka ugu dhow ay arki karaan oo albaabadoodu furan yihiin oo ayagu ay doorteen marka dadka reer dhuusamareeb iyo dadka reer galmudug dhammaantoodba waxay runtii doorteen dariiq wanaagsan waxaana rabaa hoggaanka galmudug oo madaxweyne Axmed Cabdi Kaari uu hogaaminayo iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo wasiir Cabdiwaayeel uu hoggaanka ka yahay iyo inta la shaqeyso howlwadeennada kala duwana waxay runtii ku dhaqaaqeen meel lagu cawriyo galmudug meel galmudug lagu hambalyeeyo oo ah inay dhiseen oo ka soo jeesteen degmooyinkii galmudug ee xorta ahaa maamulo loo dhisay oo kaliya hadda intii wasiirku uu sheegay hobyo ay dhiman tahay degmooyinkii cusbaa waxaan kaloo rabaa inaan ka hambalyeeyo iyadana in 32 sano kadib in dadka demographically dadku tiradoodu inay kordhayso baahidoodu badanayso magaalooyin aan jirin 32 sano ka hor ama jiro yaraa inay abuurmeen oo u baahan ayaguna inay gaaray in ay degmo noqdaan in baarlamaanka madaxweynaha xukuumadda iyo wasaaradda arrimaha guduhu ay soo jeedisay baarlamaankuna ansixiyay waxna u dhiman yihiin in degmooyin cusub la abuuray oo soo buuxiyay shuruudihii degmooyinka iyadana waa ka hambalyeynaynaayoo runtii arrintaas farxad weyn bay galmudug u tahay waxaan aaminsanahay in maamulka la daadejiyey macnihiisu yahay adeegii hadda maayarka Cabdiraxmaan uu ka hadlayay oo la daadejiyey waxaanan madaxweynaha oo codsigii aan daba dhigaya in wixii service ah adeega in lagu wareejiyo lakabyada dawladda ee lakabka dawladaha maxalliga ah dawladda hoose in lagu wareejiyo adeegyada waayo
dowladdii federaalka ahayd baaba soo wareejisay awoodo badan oo ku wareejisay dowlad goboleedkii dowlad goboleedkana waxaa laga rabaa inay maamulada degmooyinka ku wareejiso awoodaha oo awooddii meel dhex aan lagu hayn oo wasaaradda caafimaadku ay wareejiso caafimaadka degmada oo wasaaradda biyuhu ay wareejiso biyaha degmada oo wasaaradda waxbarashadu ay wareejiso waxbarashada degmada oo korontada la wareejiyo oo dhammaan adeegyada waddooyinka lagu wareejiyay degmooyinka marka loo tababaro kadib wayna qaban karaan mar haddii dadkii waayo baahida taagan oo qofku uu la soo toosayo ayaaba intaasa marka madaxweynaha waxaan codsigeena daba dhigaynaa annaguna in dowladaha hoose loo wareejiyo loo daadajiyo awooddoodii ka dowlad ahaan dowladda federaalka anagu galmudug baan ka tirsanahay wasiirna ka ahaa halkaana ka shaqaynayay 2 sano ku dhowaad oo galmudug waxaan isleenahay haddiina joogi lahayn oo xooggiinni iyo xoolihiinniina ku dari lahayn meeshay taagantaha ma taagnaateen shaqo fiican baana laga qabtay oo maantay min matabaan ilaa iyo gaalkacyo hal tarifaa lagu maraa markii la imaanayay oo aan imaanaynay oo madaxweynaha la dooranayana waa la xasuustaa noocay ahayd iyo waxa meeshaas walxumada taallay ciidamo galmudug ma lahayn oo ciidamo daraawiisha iyo kuwa booliis oo hadda qaarna tababarkii ka soo baxay qaarna tababarkii ku jiraan ayay wasaaraddii amniga oo aan hogaaminayay ayay samaysay waxaa la yidhi haddii lagu sheegana waa la isheelaa haddii lagu sheegana waa la isheelaa miyaad wax saasa marka halkan rag baa dhaliil la soo istaagay laakiin waxaan rabaa dhaliishii inaan uga jawaabo waxqabadkii meeshaan aan ka samaynay marka saldhigyadii hobyo saldhiggii cadaado iyo saldhigyo kaloo labadaas waa la dhisay saldhigyo kalena pipeline-ka ku soo jireen oo wasiirka ayaa hadda lagu sii wareejiyey baabuur intaa 6 baabuur ku dhowaad oo cabdibilayaal ah waa u soo dhicinay galmudug 4 kalena waa u soo socotaa waxaa weeye shaqadaas tirada badan contribution aan galmudug ku darsannay ahayd iyo xooggeenni waxaa kuu soo haray oo aan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo waxaa socda operation howlgal caawo dhan halkan lagu sheegay dadka galmudug waxaa weeye waa inay u gudbaan doorasho qof iyo xora gaara degmooyinkan hadda xorta ah oo hadda kuma filna golo deegaan adduunku wuxuu yeeshay 600 sano 2022 aan marayno taariikhdu markay 600 dabayaaqadeedii ayaa golayaashii deegaanka adduunka u horreeyay la dhis 1500 sano ka badan waaye caawa arrintan u dabaaldegayno ingiriiska ayaa lagu dhisay waxaan rabnaa inaan uga gudubno halkan oo si fast ah oo degdega oo dhibaatada hadda meelo badan iyo daahidda timid oo dhan looga bixi karaa in loo gudbo doorasho qof iyo coda oo golayaasha deegaanku dadku ay u codeeyaan iskoolada inta tagaan in loo codeeyo arrintaas runtii galmudug potential bay u tahay waxaanse baraarujinayaa degmooyin galmudug ka mid ah oo 4 ilaa 5 xorriyadda caaway lagu dabaaldegayo ma haystaan golo deegaan baahidooda golo deegaan maahan baahidoodu nal maahan baahidoodu biyo maahan baahidoodu waa in laga dulqaado cadowga ku dul habsaday waxa ka dulqaadayana malaa'ig cirka ka soo degaysa maahan waa inta halkan fadhida oo deegaamadan iyo deegaamaday ka yimaadeen iyo ciidamada galmudug jooga oo localka ciidamada stateka iyo ciidanka federaalka iyo shacabka hubaysan oo tirada badan oo hubka ayagu isku samaystay hubkaas iyo xooggaas ayaa waxaa la rabaa in lagu jiheeyo in laga dulqaado meel aan loo jirin 20 kiilo ayaa cabaad iyo qayladhaan ay ka yeeraysaa aanan maqlayn oo cadowgaas uu ku haystaa 4taas degmo marka la xoreeyo waxaan aaminsanahay galmudug ma kala bislaanayso way isla bislaanaysaa wayna isla jaan qaadaysaa hadday golayaal deegaan la dhisayo doorasho qof iyo cod haddii la aadayo laakiin feer maahan cadaalad maaha in deegaamada qaarna ay sii hormaraan oo laga fekero waddooyin oo xildhibaan canab ay tidhi interlog gurigayga hortiisa lagu dhajiyo
meelaha qaarkoodna dadkii la gowracayo dadkii aysan xorriyad haysan arrintaas awooddeediina waa la leeyahay ciidamadeediina waa joogaan waxaan rabnaa inaan dhiiro gelinno in arrintaas madaxweynuhuna runtii inta markaan sheekaysannay maalmahan aan joogay runtii arrintaas inuu usha u dhiftuu rabaa dadka reer galmudugna waxaa la rabaa inay ku kaalmeeyaan oo ku garab istaagaan annagoo dhanna runtii safka horaan taagannahay 4 bilood baan safka hore ku jirnay hadda ka hor waa la ogyahay haddana diyaar baan nahay in safka hore inta nimaadno dadkaas walaalaheen oo mas-uuliyaddu naga saaran tahay in laga dulqaado cadowgaas waxaan rabaa reer dhuusamareeb baan usoo laabanaya hal kelimo keliya maamulka hadda la dhisay wuxuu u baahan yahay kow waa in la adeeca idinkaa doortay ka soo dhexushay dadka tirada badan ee reer dhuusamareebeed cabdiraxmaan iyo cabdisamad iyo golaha deegaanka ee ka hooseeya canshuurta in la bixiyo waxa u horreeya waxay tahay waad aragtay ciyaalka sucuunka iyo shabaabka khawaarijta waxay ku nool yihiin waa lacagta baadda ay ummaddu ay ka qaadaan waxaa laga yaabaa inay soo wacayaan dad deegaankan degan siday xamar u wacaan gaalkacyo kuwa jooga u wacaan magaalooyin kale kuwa joogana loo waco oo qof naftiisa su u badbaadiyo uu lacag ku bixiyo lacagta lama siinayo kuwaase lacagta waxaa la siinayaa dowladda hoose iyo cabdiraxmaan maamulkiisa hala siiyo dadka reer dhuusamareeb si uu waddooyinka iyo isla xisaabtana u yimaado gabagabadii ka wasaarad ahaan madaxweynuhuna waa ogyahay wasaaradda arrimaha gudahana runtii si fiican baan u wada shaqaynaa shaqooyin tiro badan gaar ahaan deegaamadan hadda shabaabka laga xoraynayo iyo kuwa furinta hore ku yaalla oo dagaalladu ay ka ag socdaan dhammaantood saldhigyadii meelihii maamullada ay ku shaqayn lahaayeen layrkii ceelashii kuwaan ceelasha lahayn dhammaantood waa u soo leexinnay waana sida degmooyin maxaas iyo degmooyinka kale oo hiiraan ku yaallo halgankaan oo kale uu ka socdo ayadana aan intaasoo kale loo geeyey degmooyinkaas waa si fiican baa runtii hawl fiican baa laga wadaa laba wasaaradood madaxweynahana runtii aasaas u ah oo mar kastoo xamar uu tago iyo mar uu halkan joogaba gudbiye baahida deegaamada sidaasi la mid ah deegaamadan xortaana baahiyada ay leeyihiin ayaan iyadana kala shaqaynaynaa oo waxaan rabnaa caasimadan sanad kadib 2 sano kadib inay ka duwanaato oo waddooyin waaweyn ay yeelato oo dadkeedu ay maaragtay loo ilmaha la keeno oo iskuulla quality leh iyo isbitaallo quality leh in laga hirgeliyo oo maamulku uu sabab u noqdo gabagabadii dad badan baa waxay u yaqaanaan nin wax iska celiya laakiin waxaa la yidhi likulli maqaamin lahu maqaal goob walbaaba hadalkeeday leedahay aniga 4 beri baan joogay ninkii gar ii haysta waa ii dhigan kari laakiin gogasha cabdiraxmaan maanta lagu caleema saarayo ma rabo inaan garteeda ku galo aad iyo aad baan u mahadsantihin wasiirku waa mahadsan